وبرنامج كده كان كيهدها لانتا الصومالية VOA دا bulshada deegaankiisu sida isku raacsan tahay xirsi dheere waa nin wanaagsan oo kiil walba gala waa aamin oo waa deeqsi dadka jilicsan aan marnaba wadada ku dhaafin inkastoo dhaqaale ahaan uu ladan yahay haddana waa dhowr iyo 40 jir aan weli qabilta oran wuxuu dambaabaa dhowr baabuur oo gudaha magaalada uga shaqeeya iyo sidoo kale dukaan weyn oo hilbadad waxaan ahaynba laga helo waa nin arrin culus markay la soo gudboonaato ay xigtadu isku halayso ha yeeshee nimco waliba nuqsaan leh xirsi wuxuu leeyahay tilmaan aan Soomaalidu jeclayn oo qofkii lagu barto haddaan looga fogaan lagu xanto wax kalena ma ahee waa hadaltiro waa nin hadduu bilaabo aan hadalka ka dhergin markaas waa qof ama koox inta uu markaa la hadlaayo xiisaha dhagaysigiisu ku yaraada qaar baa iyaga oo goobta fadhiya maankoodu ka sii jeestaa qaar kale waaba ku lulmoodaan qaar kalena cudurdaar aan jirin inta sheegtaan ayay meeshaba isaga caymadaan isagoo weli dabeebanaya dad baa hadalka kaaga dambeeya ee uga bax xirsi ma yaqaan wuxuu oran lahaa markay ka dhammaadaanba wuxuu ku celceliyaa kuwa hore u yiri mahmaada ah anaa haray looma hadlee waxbaa haray baa loo hadlaa xirsi wuu yaqaan base taxgeliyo in badan buu maqlay tan kale ee ah hadal intaanu ku dilin baa la dilaa kuma sadaqmo wax dhan buu maqlay tan iyana tiraahda hadal nin badiyey ma wada oran nin yareeyeyna kama wada tegin ha yeeshee uguma tirsana mahmaha in wax lagu qaata mudan dhaqanka Soomaalida waa ku gaf ninka markaa hadalka ku jira inta laga dhex galo in lagu yiraahdo hebelow waad ku dheeraatay soo kufri haddiise ay dhacdo oo inta lagu dhiirado xirsi lagu qasbo inuu hadalka ka baxo qofka kale ee uga dambeeya waxa uu leeyahay uma dhug yeesho wuxuu ku maqan yahay welibana sugaa yahay markuu kaasi dabuubtiisa dhammaysto wuxuu isagu oran lahaa haddaan soo koobo hadaltira ha joogtee xirsi turxaan kale loo waa iyadana loogu adkaysan waa hadaltirada xirsi oo qura saami looma siine dar badan baa la wadaaga maasayahanada qudhooda qaar baa caan ku noqda gaar ahaan kuwa hadda nool ee reer magaalka ah raggii hore ujeedada ayay abaari jireen haddiiba ay u arartaana toodu ma dheeraan jirin faankuna aad buu ugu yaraa maanta in badan baynu aragnaa hees ama gabay tirada ka batay oo dhagaysigiisa ama akhriskiisa lagu daalo iyadoon biyadhaciisa weli la gaarin kol dhowna la gaari doonin madaxdaygana waa raggii uu Cismaan Yuusuf maanka ku hayay markuu gabayga iyo gabyaaga ka faaloorayay ee uu lahaa tif waxaan dhammayn oo yarbay tawsi ka heshaay inkastoo tixdu ku habanaa laga tabaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaay ninbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow turaabkaa wax la eg tuumiyaa jira ee tuduc yar baa ka roon waxa kan ay tira badnaayeen waxa iyaguna hadaltirada ku ceebaysan qaar kamid ah wariyayaasha aynu dhageysano ee halkay hal eray ka oran lahaayeen mid labaad oo la macno adaba dhiga ama hor dhiga dhowrkii bilood aynu soo dhaafnay ayaa waxa dhagahayga ku soo dhacayay wariyayaashaasi erayo ay adeegsanayaan oo meesha ay ku jiraan haddii loo fiirsado aan hadaltira mooyee wax kale lagu macnayn karin bal u fiirso dhowrkan tusaale ee maanta aan idin warin doono aanu horaysiiyo baryahan oraahda idaacadaha iyo telefishinada sida weyn ugu jirta ee ay yidhaahdaan cudurka safmarka ah ee COVID-19 waa hadaltiro maxaa yeelay safmar waa erey sidiisa u madax bannaan naxwo ahaanna waa magace mid kale tilmaan uma noqdo haddaan qeexo waa xanuun markii waa la joogaba si baahsan ugu dhaca dadka ama xoolaha la dhaqdo
sidaa darteed waxaa habboon ereyga cudur oo ay isku mid yihiin inaan la hordhigina la yidhaahdo safmarka COVID-19 ama cudurka COVID-19 oo keliya si hadaltiro looga nabad galo. aan ku xejiyo wariyihii lahaa magaalo hebla waxaa tababar looga furay macallimiin barayaal ah. macallin iyo bare waa isku mid, sidaa awgeed uma baahnid in aad isdaba dhigto, labada mid baa kugu filayd. maalin kale oo aan fogayna waxaan maqlay wariye ka warramaya dhacdo murugo leh kuna saabsanayd carruur dab ku la-atay. markaas buu yidhi carruurta shalay dabka ku baaba'day waxay ahaayeen agoon aabbahood dhintay. waa hadaltiro. haddiiba aad agoon tiri oo aad baahnayn inaad raaciso aabbahood dhintay, maxaa yeelay ereyga agoon ayaa kaaga filan. isla maalmahaas ayaan maqlay gabar ku warramaysa meel hebla waxaa laga qoday ceel biyaha laga cabo, sidii iyada oo ay jiraan ceelal waxyaabo kale laga cabo. waa hadaltiro iyo malaha meel ku buuxsi. wariye kale oo ka hadlaya carruur ku dhimatay meelo kamida jubbada hoose ayaa isaguna yidhi dad badan oo carruura u fiirso, dad badan oo carruura ayaa ku dhintay degmada xagar. iyaduna waa hadaltiro. waxaa ku filaa inuu yidhaahdo carruur badan baa degmada xagar ku dhimatay, maxaa yeelay in carruurtu dadka ku jirto cid in loo sheega u baahani ma jirto. ugu dambaysta tusaalaha aan rabo inaan doodayda ku soo xiraa waa oraah hadaltirada warbaahinta Soomaalidu ay dhab uga muuqato. waa oraahda ah adduun lacageed. waxaa u dambeeyey wariyihii aan maqlay isagoo ka warramaya dowladda Maraykanka iyo tabaha safmarka COVID-19 ay kula tacaalayso ee yidhi la dagaalanka cudurkaas waxay dowladda Maraykanku ugu tala gashay adduun lacageed oo dhan intaas oo bilyan. kolkaas baan isiri maxaa ka ba'aya hadduu ereyga adduun ka maarmo dabadeedna yidhaahdo la dagaalanka safmarkaas waxay dowladda Maraykanku ugu tala gashay lacag dhan intaas oo bilyan. waa waxba, laakiin hadaltiro sidhe sawtaanku iri hadaltirada xirsi dheere keligii saami looma siine dar kale oo badan baa la wadaaga. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog. waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.